asxaabta ku xiran shan media meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada sheeko cusub oo loogu magac daray Libin Jaceeyl qaybtii koobaad waa xilli galab liiq ah waana xaafada nasteexo ee degmada Wadajir waxaa geed xaafada ku yaal fadhiyo dhowr hablood oo ay ku jirto falis oo hablaha xaafada ka mid ah waxaana falis goobta kula wehelisay Yasmiin oo ay habro wadaag ahaayeen meelna ku soo wada koreen balse inta badan xaafada dadka degan sidaas uma aqoon oo waxay moodaan in walaalo wada dhashay maadaama ay xaafada xilli dhow soo degeen in cabaar ah markii goobtii lagu sheekeeyay ayaa waxa soo maray laba wiil oo wada socday markiiba falis ayay u yeereen iyadana waa ay u istaagtay oo xagooda aaday kadibna waa iswada raaceen hablihii goobta ay kaga tagtay oo walaasheed ku jirtay ayaa iswada fiiriyay oo midba midda kale ku tiriyay yihiin kuwan yaase bari falis iyadoo sidii loo wada yaaban yahay ayay falis soo laabatay markii ay aragtay in iyada la wada fiirinayo ayay tiri haye maxaa jira haddana ma aniga laygu mashquulaa Yasmiin wax kale ma jiraan walaashay balse waxaan isweydiinay dhalintan xaafada ka cusub haddana adiga ku garanayo falis ma intaas oo kaliya ayaad ku mashquusheen wallaahi caadi ma tihiin wiilashaan waa sidaa sheegteen xaafada waa ku cusub yihiin waliba aan idin raaciye waxa ay soo degeen guriga reer bunow sidaas u ogaada tii uu damac ka galay halkaas waad ka heli kartaan waliba waa doob labadaba Yasmiin micnaha guriga naga soo horjeeda falis haa waa laf ahaantiisa xaawakiin laakiin magacyadooda noo soo baashee falis taashaqo guri u qaata qadar ayaa soo socda walaashay naga soo kaxee meesha markiiba falis iyo walaasheed Yasmiin halkii waa ka dhaqaaqeen ileen qadar oo walaalo yihiin ayay aad ugu baqaan oo aan marnaba u ogolaanaynin in meel ka shisheeysa gurigooda ay fadhistaan qadar waxa ay mataano yihiin falis haddana waa wiilka ugu weyn reerka waana wiil si adag u kontaroolo hablaha ay walaalaha yihiin haba ugu darnaadee falis oo uu arkay in ay tahay gabar ka yara fudud Yasmiin waana sababta ay xilli kasta isaga iyo falis ay isugu dhacaan wiilasha falis u istaagtay laf ahaanteeda aqoon sidaa u sii buuran uma lahayn waana wiilal xaafada maalintii shalay soo degeen oo ay isbarteen falis oo ahayd qofkii ugu horeysay ee ay xaafada ka bartaan isla markaana ku saaciday gabar guriga ka soo nadiifisa wiilasha waxa ay kala ahaayeen mursal iyo aadam oo labadaba ka yimid gobolada waqooyi kadib markii hay'adii ay u shaqeynayeen Muqdisho u soo wareejisay falis waxa aad u jeclaa aabaheed warsamo nuur oo ganacsado ka ahaa magaalada Muqdisho isla markaana hanti muuqda ku lahaa suuqyo badan oo gudaha magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya hooyadeed Maryan geelle waa ay ku raacsaneed in qadar uu hablaha la socdo si qaas ah waliba falis oo iyada aaminsaneed in ay ka fududahay walaasha Yasmiin oo ay habro wadaag ahaayeen falis waqtigeeda ayay ku jirtay waxa ay indhaha la qaaday wiil yar oo xaafadooda soo gala oo Yaasiin la yiraahdo oo xaafada kale ka yimaado falis wax kasta oo nolosheeda ku soo kordha waa ay u sheegi jirtay walaasha Yasmiin markii ay xaafada yimaadeen ayaa Yasmiin hadalkii furtay oo ku tiri Yasmiin haye macalimada yay kuush ahaayeen wiilashan mise Yaasiinkii aad maalmahan waday ayaad ku badashay falis ma Yaasiin cid lala dhigi karo ayaa jirta dhuuxuuba dagee Yasmiin haye kuwan yay noo ahaayeen falis waa mursal iyo aadam Yasmiin hadda magacyadooda kuma weydiin yay ku ahaayeen falis waa wiilal xaafada ku cusub oo shalay soo degay guriga reer bunow Yasmiin oo adigana yaa ku baray falis yaa ibari lahaa aniga afka la galo ku iri ma gurigan ayaa soo degteen sidii ayaana isku baranay oo xataa aad u keenay gabar u shaqeyso oo raashinka u karisa shalayna guriga ayay ka soo hagaajisay maxaa kale Yasmiin
alla maxaan kaa yaabay fallis yuusan qadar kugu arag wallaahi inuu ku jajabinayo fallis horta kaalay aniga qadar maxaa laygu cabsisiiyaa miyaanan ahayn gabar weyn oo danteeda taqaan noloshayda iyadaa leh oo go'aamin karta yasmiin hadalkaas maalan yacniga inta aad iga dayso lafahaaga ka ilaalso qadar fallis ilaahay ha soo ururiyo walla uusan biyo xaggayga ka cabi doonin asxaabta media la socda sheekadan jimco kasta hadduu eebbe idmo